بلغ أو بتاع بلغ ناجورا بلغ أو بتاع معك دي كرتا شرما بوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelkii Kaarshe talk show. sidaad ogtihiinba waxaynu ku talagalnay inaynu barnaamijkan kusoo gudbino bal Sharma boy iyo asal ahaantiisa halka uu ka yimi. waxaan doonayaa taariikhdiisa oo yar kooban inaan halkan kasoo yaro gudbiyo kadibna aynu u galno bal waxyaaluhu sameyn jiray maadaama aan doonayo inaan ka daba tago dad fara badan oo aaminay inuu ninkaas habeenkii dhaweeyay uu caayay Puntland iyo Somaliland inuu hanin cabsan. dadka waxaan doonayaa inaan u bayaamiyo inaanu cabsanayn dabeecadiisa ama dhaqankiisa uu sidaa yahay. waxaan doonayaa halkan inaan markaa kasoo gudbiyo bal magaciisa saddexan marka hore horta maxaa loola sheegi jiray Sharma boy. Sharma boy magaciisa saddexan wuxuu ahaa Sharma Cabdirasaaq Maxamed. waxaanu ku dhashay ama uu kasoo jeedaa gobolada Puntland gaar ahaan Burtinle. haddaynu sidaa u eegno ama baynu sii milicsano wuxuu yimi isagoo kuraya magaalada Muqdisho isagoo markiiba heesaha bilaabay inuu ku luuqeeyo. heesaha markuu ku luuqeynayay ma ahayn heesaha raabka laakiin heesaha caadiga ah bay ahaayeen. dad fara badanna uu la soo heesay. dadku la soo heesay kulli fanaanin waaweyn kuma jirin laakiin dhalinyaro fara badan ayuu la heesayay. maadaama uu kusoo bixi waayay codkii yaraa ee halaasiga ahaa ama heesii caadiga ah ee normalka ah dadku qaadi jireen wuxuu u guddiga rogtay amaba uu yiri malaha raabkaaba ku fiican taasoo uu magac ku yeeshay ama saameyn fara badan oo ku yeeshay. haddaba waxaynu eegaynaa bal Sharma boy magacan weyn iyo sida loo siiyay. dad fara badan oo kulay barnaamijyo fara badan kaga hadlay ayaa jira. markii magaciisu kor u kacay wuxuu doonay inuu social media soo galo qofku doonana uu aflagaadeeyo qofku doonana uu wax ka sheego. taas waxay ku tusaysaa inaanu haynin cabsan laakiin nin dardar iyo qaylo iyo cayla soo galay fanka Soomaaliyeed. haddaba waxaan dib u eegayaa bal isagoo mar soo galay live-ka bal muxuu ka hadlayay muxuu ku hadlayay. waxaan doonayaa dad fara badan inaan ka dabageeyo ama aan beenayo maalintii dhaweeyay markuu Puntland iyo Somaliland caayay dadku ay lahaayeen ninkaas uu cabsanaa ama kiniin baa la siiyay. dad fara badan oo ka hadlayay oo YouTuber oo doonayay in isaga magaciisa dib u soo celiyaan laakiin se waxaan baniyaaminaya oo dadka Soomaaliyeed aanu sheegayaan inuu markuu badheersan yahay ninkan uu sidoo doono u hadlo. bal haddaba waxaad ku soo dhawaataan ama waan idin daawad siiraya bal isagoo ku jira live oo caayaya hablo ama wax ka sheegaya. markuu wax ka sheegaya ama caayaya hees buu qaadaya laakiin heesta hablaha waxay ku tahay dhabar jab. bal ila daawada. بلغ أو بتاع بلغ ناجورا بلغ أو بتاع معك دي كرتا شرما بوي. I love you يا اسمي لدا ناج بتاع إيكاني haddaan intaa kaga nimaadno inta aynu halkaa kusoo dhaafno waxaan doonayaa ama baan uga jeedaa oo uga daba tegaya sheekooyinkiisa ama hadaladiisa isdhaafsanaa uu ku hadli jiray. dadka doonaya inay daboolaan khaladka uu sameeyay ayaan doonayaa inaan u iftiimiyo anigoo dad fara badan halkan kusoo qaadan doona oo runtii ku sabood gareeyay wixii aan walba idin sheegay oo Soomaalidu marka hore ay isku sabood gareeyay ama ay isku taageerto xagga qabyaalada. laakiin nagu qabyaalada iyo waxa ma eegayno laakiin waxaynu eegaynaa nin kastoo khaldan in khaladkiisa la tuso. haddaba bal waxaan doonaynaa haddana aynu mar labaad eegaynaa ninka dayaxdal muqshe oo ah fanaan aad ugu qaaliya dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ka soo baxay magaalada Muqdisho. bal muxuu u geystay sagafka uu ku yiri muxuu ahaa bal ila daawada isagana. isagoo madow iscadeeyay ninko maxana ka sheegnaa asaga ka daray baram waan ku fahamnay burum isgarahe baba. haddaan intaa kaga imaado dayaxdal muqshe oo runtii aflagaadeynaya ama uu ku dhaga hadlaya haddaba dayax miyuu soo jawaabay mise hadal buu ku yiri. taa jawaabteedu waxa weeyaan waa maya waayo wuxuu arkayay inuu yahay in yaro aad u dheereeyo doonayana inuu magac yeesho sidaa darteedna uu doonayo inuu qof walba isku qaado ama meel walba uu caayo ama aflagaadeeyo. taa waxaynu uga jeednaa ama baynu ka daba tegaynaa cid kasta oo isku dayda inay dadka marka hore intay caydo marka dambana ay tiraado sibaan ahaa ama waan cabsanaa ama kiniinan qaatay ama dad baa wax igu sameeyay. taasaynu mar walba aynu naqaano haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed inaynu ku marmarsiyono oo qofkii oo khaladka isagoo miyir qaba oo caadi ah sameeyay haddana hadhowta laga dhigo qof aan miyir qabin markaa. laakiin si qofka waa la nitalo markuu live-ka ku jiro ama uu hadlayo miyaanu hadallada uu ku hadlayo aanay isdhaafin. waxaynu doonaynaa inaynu iftiimino wadamada gaalada ah had iyo jeer waxay yiraahdaan qofku runta wuxuu sheegaa markuu cabsan yahay waayo wax kasta uurkiisa ku jira ayaa ka soo baxa. laakiin inagu muslim haddaynu nahay oran mayno taa laakiinse ninku
maskaxdiisu inay joogtay ayaanu halkaa ka cadaynaynaa. waxaan doonayaa oo kale inaan ku daro bal haddaba kiliib kale waxaad ila soo daawataan haddana isagoo ku jira live oo dad fara badan kiliibkana waxaan idii daawadsiinaya waayo dad fara badan baa waxay lahaayeen ninka saaxiibadii ayaa hoday amaba saaxiibadii maxay markuu hadlaayay maadaamay dhinac fadhiyeen ay u qaban waayeen. taana jawaabteedii waxaan u siinayaa bal waxaad daawataan isagoo live ku jira waxaa ag fadhiya ninka la yidhaahdo xasan. haddaba bal xasan oo ag fadhiya oo uu leeyahay dadka ha caayin amaba waxaa ka sheegin xasan toob oo uu leeyahay lifeka maadiga ayla leh maxaa kaa galay badayda ka bax dadkiina uu caayayo balina daawada markaa qudhadeena dadku waxay lahaayeen isagoo cabsan buu soo galay live laakiinse Sharma boy ma cabsana waxna ma qabo laakiin uu bareeraa gabadha waxaa jirtay oo dhahday natiijadu waxaa keenay 0-0 صح ان شاء الله سنقوم بحاول gabadhaas ya انا برسنتاج كنتا suudaan laa زكيري انا اكو عنادي هوري ايغدالبو عاد سمين كرتا برادا abtooy waayo oo ku dhaha hooyada ma la xabaani laxdo ku dhashoos ruuxan fiirniyo wixii buuq wada faraam intaniyo faraam inta ma dadka shacabka joogsanayo war shacabka salaama wixii buuq inta ma buuq ayna faraam inta brada asasadi inta hadeen maahane hada life kama igu jirta ma igu jirta gamka dhasha dadka ay u taalay iqrina ana ku saadi ruuxan waji ku yeelin runta loo sheegaanayo hadalkan uu leeyahayna waa hadal caadi u soo baxay inagu hadaynu nahay haddaba Kaarshe talk show waxaynu tooshka ugu ifinaynaa ninka la yidhaahdo Sharma boy waxaynu doonaynaa dad fara badan inay arkaan inay dadku marka hore intay isnasaqaan marka dambana raaligelin bixiyaan kilibada raaligelinta uu bixiyay inagu waynu soo wada aragnay laakiin taas muhiimadeedu waxa weeyaan inuu doonayo waji badan inuu soo ceshado taasuna waxay noqonaysaa macnaheedu inuu markuu doonaba cid iska caayo amaba uu iska koro isjeediisa ka baxayna ilama aha inuu meel gaarayo. haddaba waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan maadaama aan doonayo waliba inaan ka sameeyo barnaamijyo dheeraad ah laakiin caawa halka ayaan ku joojinayaa waxaan rabaa inaan kaga tago ama baan idinku soo gabagabeeyo waa fanaanka la holin waayay ee dayaxdal mushe ninkaas oo cadow fara badan leh ayaan doonayaa bal in yar kelmad yar oo uu ka yidhi dadka nacab oo ah jawaabna u ah ninka la yidhaahdo Sharma boy ayaan doonaya inaan ku soo gabagabeeyo. dayaxdal mushe inta badan dad waxaa jira meediyaha adiga yacni ka aflagaadeeyo amaba waxyaabo kale ku dhaho laakiin dadkaas adigana aqoon kuma laha bal dadkaas maxaa aan u sheegay fikirkaaga waxaan dhihi lahaa adooni arag haynicin intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijyo kalena waan idiin soo wadaa haddii ilaahay ka dhigo kuwii ka hadlaaya Sharma boy ee youtuberada ahaa intay ka tira leeyihiin nin walba wajigiisa dhabta ayaan doonaya halkan baan keeni doonaa insha allah waad la socon doontaan sidaa iyo nabadgelyo.